بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan ka salaamayaa taliyaha ciidanka xooga halkan ila taagan Axmed Jimcaale Cirfiid, wasiir dowlaha madaxtooyada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo gudoomiyaha labaad ee aqalka sare iyo saraakiisha halkan fadhida, saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo marti sharafta kale iyo safiirka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan rabaa oo kale inaan uga mahad celiyo dawladda waalaheena ah ee Imaaraadka oo suurtageliyay inay halkan training-kan aan ugu magac darnay General Gordon ay halkan noogu dhiseen si ciidankeena halkan fadhiya iyo kuwa badan oo soo socda tababar loo siiyo si ay uga qayb galaan hawlaha dib u xoreynta Soomaaliya oo aan uga xoreynayno qolooyinkan argagixisada ah, nabadiidka ah oo runtii ama xaqiiqdii doonaysa Soomaaliya inay ahaato goob dagaal caalamkuna ay ku asteeyaan meel aan la geli karin. aad iyo aad yaan uga mahad celinayaa dawladda waalaheena Imaaraadka hawshan waxa ay ka qabteen iyo juhdiga ay geliyeen iyo sida weli noola sii shaqeynayaan si aan u helno ciidan tayo leh oo tababarkiisu sareeyo oo ka hortagi kara cadawgana haysta. aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinaynaa. waxaan rabaa halkan inaan laba kelmad ka iraahdo. Soomaalida hore waxay u tiraahdaa fulay xantiisa ma mooga. waxaan rabaa inaan siiyo waxa lagu xanto ciidamadeena qalabka sida khaasatan xooga ciidanka xooga waxa lagu xanto waxa la yiraahdaa magac iyo musiibo maalin ayay dhacdaa ama maalin ayay baxdaa. waxa lagu xantaa ciidanka xooga markaan la sheekaystay ajnabi amisom iyo beesha caalamka iyo cid walbaba inaad tihiin geesiyiin. inaad tihiin geesiyiin soo majeystayaal oo xaqiiqiyan meeshay galaan aanan ka soo noqonaynin iyagoo guul ka keena mooye iyagoo naftooda u huraya dhiigooda u daadinaya runtii xaalad adag iyo duruuf adag iyadoo weliba lagu jiro waa wax caalamku isla qaatay oo lagu sheekaysto oo wax caam ah oo la wada og yahay ciidanka Soomaaliyeed inay yihiin ciidan geesiyiin. taasi horta meel dhigta inkastoo dhaliilo ay jiraan oo aan doonayo dhaliilahaas inaan wax ka taabto. dhaliilahaasi waxaa qayb ka ah ciidankeenu discipline ma laha. haddana waxaan arkaa sida tababarkan iyo la ii siiyey warbixinta inaad haysataan disciplinkii ugu fiicnaa. waxaa kaloo lagu xantaa oo la yiraahdaa qalab ma haystaan ciidan. waa dhab taasi waxay ka timid duruufta adag ee dawladda ay ku jirto iyo dhibaatada dhaqaale ee haysata iyo cunaqabateenka hubka ah oo na saaran ee taas ka timid. tan ugu muhiimsan waxay tahay waa dhimanaysaan dhiiggiina aad u daadinaysaan naftiina aad u huraysaan kaneeca idinku cunaysa dhufaysidaa noogu jiraa. maxaa loo dhimanayaa? maxaa dhibkaas loo marayaa? waxa weeye su'aal loo baahan yahay in la isweydiiyo. su'aashaasi jawaabteedu waxay tahay oo marmarka qaarkood dhaliil noqota ciidankeenna laguma tababaro wadaniyad. wadaniyad lama geliyo. wadaniyadana ka xoog badan hubka iyo disciplinkaba. maxaa yeelay qofku waa inuu haysto wuxuu aaminsan yahay oo mabda ah uu ku dagaalayo inuu haysto oo uu naftiisa u hurayo inuu haysto oo laga yaabo xitaa mushaar la'aan inuu ku shaqeeyo inay jirto. taasi waxa ugu horeysa waxay tahay wadaniyada iyo patriotism oo loo baahan yahay hadda inaan xoojino oo aan gelino ciidankeena si ay u aaminaan waxay difaacayaan inay tahay wadankooda inay tahay waxay difaacayaan dalkooda inay tahay waxay difaacayaan dadkooda inay tahay waxay difaacayaan diintooda inay tahay waxay difaacayaan inay tahay dawladooda
markaasi ciidankaasi ama dalkaasi wuxuu leeyahay ciidan qaran maxaa yeelay ciidanka markuu aaminsan yahay inuu u dhinto uu naftiisa u huro inuu difaaco qarannimada Soomaaliyeed waa meesha ugu dambaysa weey waxaan ognahay oo xaqiiqo ah qaranku waa ka xoog badan yahay qof waa ka xoog badan yahay qoys waa ka xoog badan yahay qabiil qarannimadu waa har la harsado weey sida hadda meeshaan aan u joogno haddii meeshaan aysan lahayn saqaf aysan lahayn ay duleysho meeshaan la isugu imaan karo maxaa yeelay waxaa ku dhacaysa qorraxda waxaa ku dhacaysa roobka ku da'aya ma fariisan karna marka qarannimadu waa saas waxa ku hoos jira qofkii waxa ku hoos jira qoyskii waxa ku hoos jira qabiilkii marka waxa loo baahan yahay inaan dhisno qarannimadii marka taasna waxay ka timaadaa wadannimada qofku inuu aaminsan yahay koow waxa uu dhisay inay tahay qaran tan labaad diinta iyo dalka oo qayb ka ah qarannimada naftigeeda maxaa yeelay inaan difaacno diinteena weeye qoladaan diinteena ceebeeyay oo ka dhigay diinta islaamka wax dadka lagu xasuuqo hanti lagu burburiyo inaan ka hortagno oo diinteena aan lagu ceebeen diinteena waa diin faseexa oo nasteexa leh oo wanaagsan oo maxaan ku raahdaa peaceful ah oo amaan ah weeye marka inaan difaacno diinteena waa qayb ka mid ah wadaniyadda iyada naftigeeda inaan difaacno dadkeena shacabka inaan difaacno waa qayb ka mid ah wadaniyadda naftigeeda oo maxay tahay inaad jeclaato qofka walaalka oo Soomaaliyeed oo aadan u qaadin qabiil oo aadan u fogeyn qabiil oo marka aragto qof Soomaaliyeed oo adduunka magac ku leh aad ku faani karto aad oran karto qofkaas waa qof Soomaaliyeed wuxuu galay maxaan ku raahdaa meeshaas wax ka galay waa la yaqaanaa oo aadan fiirin ciduu yahay maxaa yeelay magacii Soomaaliya wataa waxa loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed inaad dhaqaalaysato oo aad ilaashato oo aad difaacdo waa shaqadiina weey waa qayb kamid ah wadannimada weey dalkan waa saas oo kale waxa la rabaa dalkaagu inuu yahay dal aad ku faani karto waxaana gaarsiin kara dalka in lagu faano markuu dalku leeyahay cudud idinkoo kala ah xoog markuu leeyahay awood markuu leeyahay macnaheedu waxay tahay adduunku waa ku sharfaaya marka waa ku karaameynaya maxaa yeelay waxaad leedahay dawlad adag yaad leedahay dawladdaas adagna waxay ka timaadaa dadku inay taageeraan waa qayb ka mid ah wadaniyadda oo gacan la siiyo dawladda oo aan lagu hadla qaban oo aan la caayin waa qayb ka mid ah wadannimada waxaa loo baahan yahay oo kale wadannimada qayb ka ah in la taageero oo gacan la siiyo oo la garab istaago dawladnimada maxaa yeelay dawladnimadu waa aaladda ama elementiska isku haya dalka dhan weey oo isku abaabulaya haddii loo baahan yahay dalka in la difaaco haddii loo baahan yahay in maxaan ku raahdaa meelo kale laga shaqeeyo marka waa qayb ka mid ah wadannimada in dawladdaas markaas joogta gacan la siiyo lala shaqeeyo la garab istaago maxaa yeelay iyada ku masalaysa haddii marka aad ceebaysato oo aad fool xumayso oo lugaha qabsato haddee si fiican kuma masali karto oo dadkeeda ku dhagan waa qayb ka mid ah iyada nafteeda wadannimada waxyaabahaas oo dhan yaan rabnaa in aan barno ciidamadeenna si ay u difaacaan waddankooda iyo dalkooda iyo diintooda siday u difaacaan dadka citizenka ah oo Soomaaliyeed oo muwaadiniinta ah oo degan maxaan ku raahdaa muwaadiniinta ah in la difaaco mas'uuliyad idinka saaran weeye inaad difaacdaan laga bilaabo maxaan ku raahdaa jamhuuriyadda inaad difaacdaan waa mas'uuliyad idinka saaran hadday noqoto dhulkeeda hadday noqoto cirkeeda iyo hadday noqoto baddeeda inaad difaacdaan qaybaha ah qalabka iyo agabka loo baahan yahay waa qayb dawladda ay ku maqan tahay oo loo baahan yahay inaan keenno si ciidanku uu haysto qalabkii uu ku dagaali lahaa uu cadow iska celin lahaa meesha ugu yar
ilaa meesha ugu sarreysa oo loo baahan yahay oo ciidamadeenu aysan ka qalab yaraanin cadowga aysan ka qalab yaraanin maxaan ku rahdaa ka qalab fiican yihiin walaalayaal waa mahadsantihiin aniga arrinta discipliinka lama hadlaayo laakiin guud ahaan ciidanka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay haddii la rabo inaan cadowga ka adkaano ciidanku waa discipliin ciidan aan discipliin lahayn iyo kala dambeyn cadowga iskama celin karo sidaas darteed iyadoo naftigeeda waa qayb ka mid ah aan ka wadno isku dhafka iyo training cusub aan siinayno ciidanka qalabka sida si ay u ogaadaan muhiimadda ay leedahay discipliinku uu leeyahay insha Allah waxaan rajaynaynaa annagoo ku mahadsan dawladda waaleena ah ee Imaaraadka inaad soo gashaan oo qayb aad ka noqotaan hawlgallada aan wadno oo aan kula dagaalayna cadowga sida ugu dhaqsiyaha badan maxaa yeelay waqti waan ugu socdaa amisom waxay joogtay muddo 10 sano ah waxaa la isweydiinayaa amisom waa noo soo dhimatay dhiigooday noo soo daadiyeen muddo badan bay halkan joogeen annagaa la rabaa hadda inaan kala wareegno hawshii oo aan dalkeena difaacno 10 sano kale ma sugeyno in la sii difaaco wiilashan idinkaa la rabaa inaad qabsataan waajibaadkiina oo aad kala wareegtaan maxaan ku rahdaa 10 sano muddadii ayna difaacayeen aad kala wareegtaan hawshaas oo idinka aad difaacataan caruurtiina qoysaskiina guryihiina iyo qarankiina waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi